بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي بان بحد له waxaan halkan maanta u imid inaan dareenka la qaybsado saaxiibadii gobolka Banaadir runtii shalay halkan wixii ka dhacay waa la wada socday cadawgii eeyaha naarta ayaa weerar ku soo qaaday xarunta caasimadda waxa laga yaabaa dadku inay arkaan kaliya weerar baa ka dhacay xarunta gobolka Banaadir laakiin qofkii xaruntan garanaya wuxuu maaragtay fahmi karaa wax badan meelaha ka maqli jirnay al-shabaab waa la fashiliyay laakiin wixii shalay la dhigi karaa waa la fashiliyay sababtoo ah xaruntan waxa maalmaha shaqada kale waliba shalay kale xada oo dadku u badnaa u soo adeeg doonto intaas oo boqolaal kumanaan dad ah mas'uuliyiinta ka shaqeysa intaas oo kale in marka cadawgu intuu isku dayo inuu soo weeraro halkaas jiro yarta lagu celceliyay qasaaradu ay 5 qof maarata noqotay iyadoo kumanaan qof ay halka xarunta ku jiraan waxaan dhigi karnaa fashilintaas la sheego waa mid aan waay waxa amaantaas iska leh Allah subhanahu wa ta'ala bacdillah waxa iska leh ciidamada amniga oo xarunta ka howlgala oo u diiday cadawga inuu u gudbo yani departmentkii koobaad uu galay inuu hal meel ugu gudbo u diiday oo ku sabay ciidamadii kale oo tababarka gaarka qabay inay yimaadaan inta kadib arintan waxa la dhihi karaa wax bay sheegaysaa waxay sheegaysaa nimankaas inuu baabaoodii la joogo waxay sheegaysaa in aanay xataa inay meelaha weeraraan hadda wax maaragtay istiraatiiji ay ka lahayn oo yani kaydkoodii inay iska soo fasaxeen maaragtay muujinaysaa diin la'aantooda waa muujinaysaa midaan saa ka dhigaysta ayaga kamid ah wuxuu leeyahay hadda waxaan taaganahay xafiiska gudoomiyaha dhex taaganahay bal xafiiska gudoomiyaha yimaadeen oo maya wuxuu leeyahay aniga gacanteeda 16 ku dilay keligay ma 16 meeshan ku dhimatay waa maya wuxuu leeyahay mid kamid ah islaamka ma ana taabanayna gaaladan dileen waa qof gaala meeshan ku dhintay nin miskiina oo camoolaha oo dadka baaya gaarka qaba iyo waxa ku dhintay 2 gabdhood oo kale 3 gabdhood oo kale adiga 5 qof yani waxaas oo waxay muujinayaan fashilkooda iyo diin la'aantooda iyo wixii lagu yaqaanay mar kale runtii waxaan garab taaganahay gobolka Banaadir maamulka guud ku xigeenada degmooyinka dhammaan inaan garab taaganahay solidarity inaan u muujiyo ayaan meesha halkan u imid waana mahadsantiin waana laga guuleysana cadawgan anaguna sidii aan markasta u sheego dawladda Soomaaliya waxaan ku garab taaganahay dagaalka looga soo horjeedo khawaarijta dhinaca kasta oo garab taaganahay si hagar la'aan waa mahadsantiin. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.